waa soo orday markaan soo orday oon sabuulkiisa ugu soo dhaxbaxay waxaan maqlaa bif waa istuur xabadii marka xoogay ag martay marka xabada markay xoogay ag martay aan dareemaan sadhaa ninkan wuu ku dili rabaa ayaan isdhiibay marka maxay tole gacmahan taagtay waxaan dhahay niyo ha idilin waxaa tole gacmahan taagtay waxaan markii ninkan qoray kaas ugu soo taagayo marka taariikh aad u adag ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin ba asxaabta waa idin salaamaya ku xiran channelkayga Chef Mahad waa aniga Chef Mahad maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikh nololeedkayga inta igu fiicneed iyo inta igu xumaad ba insha Allah qofka bini'aadanka marba taariikh buu soo maraa mar waxaad la kulmaysaa adduunka taariikh adag marna waxaad la kulmaysaa taariikh fiican ayaa adduunka la kulmaysaa hadduu Ilaahay ka dhigo marka qofka bini'aadanka waxaa fiican inuu maaragtay xaqiiqada ka hadlo anuma xaqiiqadan ka hadlaya taariikh nololeedkayga inta ku fiican xaqiiqadan ka hadlaya inta dhibaato aan soo maray xaqiiqadeeda ayaan ka hadlaya insha Allah horta muraayada aan sii waan si fiican isku aragno saan hadda markaan dhahayo anaa isfiirinayo laakiin saan markaan dhahayo kaamiradan fiirinaya dadkii toos isku arkana marka YouTube lay badan waxaa arkay يعني ayaga isfiirinaya saar qol isku fiirinayo aan dadka fiirinayno oo caan ah idinka waad aragteen macna xaslada qofka ma caawanaya qofka marka dadka YouTube soo fadhiisanaysid ama dad qaw sheekeynaysid waxaa fiican inaad kaamirada fiirisid si ay toos ayaga ku arkaan dadkii oo adigana maaragtay yani aad maaragtay toos indhahaaga aad macna dareenkaaga asiisid inaad qofkan yani toos asoo ku fiirin ko TV laga fiirsanay martay laakiin sax hanta dhehaysid because meel kala fiirinaysa waa cawarantahay marka asxaabta aan kasii gudubno bilaadanka sidiisa Ilaahay untay marba marxalad ayuu maaragtay ku sugan yahay mar caafimaad buu qabaa mar uu xanuunsan yahay mar noloshiisa iska adag mar maxay ahayd tole noloshiisa oo fudud marba xaalad buu qofka bilaadanka haysta laakiin qofka waxa fiican inuu horto yani Ilaahay yani si fiican u yaqaano Ilaahay maaragtay mar walba maaragtay toobooyinkiisa oo badan yahay Ilaahayna maaragtay oo maaragtay macna talada saarto Ilaahay wuxuu yiri maaragtay wax aad shar u maleynaysaan ayaa khayr idin ah wax aad khayr u maleynaysaan shar ayay idin tahay in allaha huwa ya'lamu kulli shay wa antum la ta'lamun marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala asiga ayaa ku og meesha maslaxadaada iyo dantaada ku jirto asiga marka caabud oo maaragtay wuxuu farayal wuxuu ka reebay ka har insha Allah qofka muslimkaana waxa waaye bilaadanka sidiisa qofka muslimkaana mar waa dambi oo ka dhaca gaf waa ka dhaca laakiin toobakeen waa loo baahan yahay inaad toobakeentu dib u soo laabatid oo Ilaahay isku dhiibtid oo tirada ya rab ya Ilaahay tooba Ilaahay sujuudid oo sujuud Ilaahay ku barisid Ilaahayna maaragtay waa nawar buu gelinaya qalbigaaga oo niyadaada maaragtay ku iftiiminaya marka taariikhda marka maxay tole nolosha qofka bilaadanka mugdi marna soo martaa marna iftiin soo martaa marna nolosha ku adkaata marna nolosha Ilaahay wuu sahlaa aniga Yurub ma u soo tahriibay laba jeer oo soo tahriibay way suurtagelaysa markaan soo tahriibay qofka halkan Kenya rab halkan uu jooga wax kasta waa qadar waa wax dhacay qofka markaas Afrika ila jooga waa hooyaday Yurub Kenya waana tahriibay laba jeer oo tahriibku uu suurtagelay waay oo labadii jeer Ethiopia laga soo celiyay waxaan tagay Bahardar meel dadka soo tahriibay yaqaano Gondar Matama dhinaca mar waxaan tagay Gambela meel leeyahay ka madmadow Suudaan ta madmadow ay degan yihiin iyo Ethiopian ka madmadow maarta وجهك جاحم الكاه عن لين أودا غيركم مذو والله ليش دقيقة يا مارت مرة تهريبي مرنا حون تهريبي لنا عن بحر دار يا غوندر يا متم يا دول كاس متم مركز دم اللي قطع دك شو تهريبي يا خانو متم اللي قطع واحد كتوبي يا السودان أرد مال اللي حلو اللي سوء اللي وجع اللي الزاب اللي وجع اللي قصو ترى دنوا صلت ميل أنت قرأ dhinaca waxa soo tahriiba hadare dhinaca waxa soo tahriib maxay tolay kuwa madowga degan ni sheegay maxay meesha waa maadada ni sheegay governor man Gambela meel dhahay Gambela meesha soo tahriib dhinaca soo tahriib hadana doon aan soo raacay xadku waxa lagu qabtaa hadana Suudaan ay Ethiopiankaas qaybta Gambela waxa ay mar qaybna Ethiopia ma qaybna Suudaan waa isla mid madow laakiin ku mid madow waay marka waxa lagu qabtay meel doonta meel la geesay soo wada meel wabiga marayna doonta meel la geesay waana la qabtay aniga doonta marka kadib magaalada aan galnay ayaa hadana doon kale aan sii raaci rabno askaraana qabatay waana la xiray xabsi Allah xabsigooda farxuma dhiiqo rafaadka waa yaabaysa kaneecada habeenkii inna lillahi wallahi nolol adiga ahayd
marka waxaan anigoo saddex waxaan ugu soo celiyay dhalinyaro aan maaragtay saddex dhalinyaro askaran la soo raacsiiyay oo laba ah doontii dib noola soo saaray doontii dib ugu soo baxnay marka aniga waxaan dhahay sac amar niyo maraa lagu soo taariibtay lacagna way ka baxday mar labaad sac marka waa ina dhuumataa waa li toogan raba markaas bal fiiriya ilaahay iga badbaadi doono doontii aan soo saarnayn doontii aan u saarnayn marka waxaa dhacday meel tuulo ayay doonta ku istaagtay macnaha shaha meeshaan laga cabo waxaa shaah cadaysa iyo meesha waxaan ka cunay iyo jabati ayaa meeshii nulisi jabati sidoo wasan ku soo fiirinay kage jabatiga marka meesha waxaa ku galay inaan cunno ana askartii iska fiirinaya marka waxaan rabaa inaan birtu ugu qabto on ka cararo bas marka askartii isku mashquulsan arkay sigaar wax shishiteen oo dhinac isku mashquulsan meesha marka waxaa ka baxaya sabuul ka baxaya marka meesha sabuulka dhadhac orda marka sabuulka dhaxda kale bal fiir meeshaan ku orda waxa waaye webi kale iyo bad kale iyo balaayo masasa ka buuxi kara nyaxaas iyo balaayo qashana ku cuni karo meesha waa meel bahal galena waa orda marka waxaan leeyahay saaxib laba jeer markaan doonta waxay ku soo doon kala dhuu meelan ku sugtuulan ka sida si galle marka suudaantaadi si tariif marka bif maqal xabad waa marka ordaan waxaan maqla bif xabad wif igu dhaaftay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi waa istooray marka istooray nimanka niman naxaya ma hadii macnaa waxa la soo dhaay nimanka hadii idinka fagtay ma qaad toogta meesha ku dilayaan waxa wax kusku ka soo raacanayo wax ka soo daba ordaya ma xabad inagu soo ridaya marka bif xabad marka igu soo ridaya wiilashii kale ayagoo dhahay ordina aan ordo wallahi xabad igu soo rideen waa istooray waa ista gacmahan taagta marka dambe wiil dhalinyaro ah soo san u ka qadabluusan oo dhahay soo soco hadii kale waa ku jecnaya aan dhahay war ha idiliniyo wax ka ma sameyn bismillaahir rahmaanir rahiim wali soo qabtay lagu haliga xiray wali soo jeebay waxa li keenay maxay ahayd gondar meesha maxay ahayd gambala li kana saliga weyn gambala alla meesha saliga weyn meesha lagu xiray saligi weyn marka ku xirnay asxaabta soo taariin insha Allah laga yaabo in YouTube ka jiraalka fiirsan doonaan ay arki doonaan asxaaba marka meesha Soomaaliya ay meesha kula kulmay waa maartay meesha waxaan ku jirnay saddex xishaan ku jirnay basana la soo saaray subhanallah basana la soo saaray baska markii la soo saaray Addis Ababa markaan cabaar u dhadhownahay ayaa meel istaagay bal fiir hadan daaqadii baska iska furada lacaga wata marka lacaga waxay ugu tulan tahay $500 $600 buumada aan watay asaan u galgilay meel dulada mar meesha xariga aan galgilay $100 taas uu la laabay oo bac kula laabay baski aan fatax khadahay waan ka degay waa cararay waxaan maartay gadaashidan fish wax daba socdo male iskama wareerin dhab maxay ahayd tole cabaar hotel aan tagal caga wata aan dhahay inaan hotelka degan raba wax maartay matawqiya ma haystaa wax matawqiya ma haystaan dhahay matawqiyada bas baawur maartay ayaa igala tagay dharka shantadii wax dham xalifkaadi way ka aqbalay lacag Ethiopian wata lacag Ethiopian ka siiyay subax waa iska soo baxay bangi West Union bank la dhahay ayaan $100 keensada waa sariftay sidii Addis Ababa ugu soo laabtay marka Addis Ababa aan ka soo baxay marka waxaan imaaday Nairobi Kenya marka nolol yar iga bilaabatay ma sha Allah oo inaan maartay shaqaysto hoteelaan ka shaqaysto oo kugnimadeeda aan la shaqaysto ayaan ka bilaabay Nairobi Kenya imaaday ma sha Allah Nairobi Kenya marka imaaday isli waxaan degnay insha Allah hooyada markaas waxay degnayeen lodge miyay degnayeen markaas ayagana process Europe u socdo Europe ay soo socdeen oo Europe ay imaanayeen marka familku way soo baxeen Europe ay imaadeen markaas anna iska sii shaqaystay marka hooya noo soo dacwootay ma sha Allah keentay Europe keentay ana marka Kenya ka shaqaystay waa iska xariiftan maaya alxamdulillah waxaan ka shaqeynay hotel oo liiraado maxay tole Al Nasr hotel aan ka shaqeynay restaurant maxaan sameey jiray roasted chicken aan sameey jiray iyo breeze maxay tole breeze mindi aan dhina waxa ahay biryani rice iyo chicken rice aan sameey jiray marka maqaayad sacabaran ka shaqeey ma sha Allah marka dana Nomad Palace Hotel ayaan imaaday markaas Nomad Palace Hotel laga xayisiinay Universal TV aan ka arkay hotelka oo bashiniyahay intuu ku yaala isliya dhac oo soo baxay iskuma soo wareeray Nomad Palace Hotel ay imaaday waxaan la kulmay insha Allah nin markaas Allah u naxariisto dhintay liirada Maxamed Barre nin fiican buu ninka Allah u naxariisto ahlu cibaado waa ninkaas Allah u naxariisto aad u fiican ninkaas aan la kulmay waxaan dhahnay cook baan ahay maaragtay saas meel wadamada nooc ka soo shaqeeyay Sacuudiga ka soo shaqeeyay only macnaha aniga hada shahaadooyin wax ma wato laakiin shahaadada waxa ay tijaabo only 3 days hadii 3 days kana wax mushaar idin ka marabo tijaabo iga qaado tijaabo la iga qaaday
saddex maalmood maasha allah wallahi alcadiim waxaa waaye ma horta intaan tijaabada laga qaadin walaalkiis nuur barre ducale oo booskayga ahay ayaa maaragtay la kulmay asagoo la kulansiiyey oo baray marka tijaabadii marka waxaa la maxay tole bad cook Soomaaliya aan u baahnay because marka waxa jooga sheefaf Kenyana joogan oo maaragtay jaamacad ugu soo baxay cunooyin marka dhinacii cuntada maadaama hotelka ay ku xiran dad Soomaaliyeed dibadaha ka imaanaya Europe iyo ka imaanaya Mareykan iyo ka imaanayo ayaa maaragtay u baahan cunooyinkii Soomaalida marka waxaan aniga cunooyin special aan garanay cunno Soomaali kaliya ma garanayo marka tijaabaha laga qaado tijaabadii marka 3 maalmood markaan shaqeeyay 2 maalmood markaan shaqeeyay tijaabadii waan ku guuleystay maasha Allah aad iyo aad maaragtay cunadii buufayga markaan geliyay dadku ugu wada qanceen marka maalintiiba odayga waxa uu qabtay qadaadiic uu qabtay waxa uu yidhi adiga $100 wax noocaas uu yidhi wuxuu yiri maaragtay maxay tole niyo shaqada waan u baahanahay maaragtay aad iyo aad aan gacan fiican tahay aad iyo aad gacan macaan tahay soo shaqagal maxay tole waa ku kaasa hotelkan ka xamaashay inuu hotel ku jiro processorkii insha Allah processorkii markii Sweden ogolaashihii ayaan wadanka Sweden haystay waxay 2010kii ogolaashihii aan helay waxaan nagu xayirmay 2 sano ayaan xirnaa oo boqolkiiba stone oo maxaan haystay oo sax ogolaansho aan weligeed dhicin oo daa'iman ah ayaan waxaan ku helnay Kenya laakiin waxaa xirmay immigrationkii Sweden ayaa xirmay oo wax dhaqaaqaya iyo wax soo baxay Sweden ma lahayn 2 sano markaa iska sii joogo iska sii xamaalanay alxamdulillah gabadha 3 carruur ii dhashay ayaan meesha isku baranay waan isguursanay wax walba waa qadar inaan wadankan aniga carruurnimo lagu keeno aniga ilaa kuma darnaada meeshii yani taariikh ahaantii ku qaan gaaray oo carruur meesha naaka ku guursaday oo maaragtay carruur ay ugu dhashay gabar ugu dhashay aniga halkan aan imaado ayda aan u dacwoodo halkan aan keeno wax kasta waa shay ilaahay oo qoray maasha Allah ilmahayga maanta ay ugu nool yihiin Sweden wax kastana waa qoraal marka alayti xalay warin ku daalinin Nomad Palace Hotel aan ka shaqeystay Nomad Palace Hotel hadaad qortaan Google ku qortaan waad arkaysaan waa hotel special ah Nomad Palace Hotel hotelkaas ka shaqeeyay Nairobi isli ay kala Google ku qortaan halkan aad ka bookinaysan kartaan marka waan soo baxay Sweden aan imaaday Sweden markaan imaaday walaalkii hadda Soomaaliya jooga waxa iga soo doonay airportka iga soo doonay marka waxaan la yaabay barafka macnaha filmaana ka fiirsan jiray waagaas yani waxaan fiirsan jiray barafka yani inuu yani ka da'ayo maxay ahayd tole filmaan marka live u aragtid de waxa waa wax kale marka filim ka fiirsan wax kale marka waxaan soo qaaday Ethiopian Airways waxaan xasuustay Ethiopian Airways markaan ka soo degay ayaan ma aragtay dhun baa la soo dhaxmaraya marka diyaaradda ugu jirna cadaan ugu jirna diyaaradda soo waxaan leeyahay diyaaradda dhulkan way taagan tahay waxay cadaankan daaqadan fiirinaya marka ila dhulka barfa buuxo laakiin diyaaradda inay degto runway ku degto ay degto waan dareensanahay dhulkan waa fiirin waxaan leeyahay saac amalniyo erkan waa kasoo degto dhulkan waa joogtay cadaankan maxaa waay marka waa soo baxay airportka banaanka oo soo baxay immigrationkii gudihii waxaan horta niyo taariikh aan iga sheekeynaa marka ka soo baxay Nairobi hore airport waa dhibaato badan tahay waxaan wadanaa emergency alien passport wax la dhahayo warqad passport warqad ah aslan passport ma iyo kaarkii degnaanshaha oo Sweden ayaan wadanaa marka aniga walaalkii mataana aan ahay isla socono Abdulqaadir marka waxa dhacday marka inuu la qabsado airportka Kenya waxay rabaan marka ay wax u barteen Kenyaati wax u barteen airportka fadhiyo la luush u barteen waxay ku leeyihiin hay waxaan u jeedaa wax iska bixi kara ma adiga Soomaaliya waxaan ugu diraa insha Allah inta saan wada sheekaysanaa Soomaaliga meeshaan soo istaagay waxa dhacday marka naagtii wixii fiirisay way warqadihiisa u gudgudisay waxay tiri hiinaniini markaas hiinaniini anda hiin passport markaas tii passport gaani passportka waxaan maxaa waa passport noocee waa waxaan maxaa waa passport maxaa passport ilaa wax waa warqad waa emergency alien passport marka waxaan warqad waay maxaa waa waxaan igu tiri markaas waxaan dhahay waxaan warqada waxaan wax maxaa laana maxaa ka galay adiga waxaan wax sharciyeysan waay waxaa wacdaan dhahay ambassador aniga marka Soomaaliga si fiican u aqaana askartan indhahan ka gala because waa si fiican isku barano waxa waaye waxay rabaan dhanna u jeedaan faatahay warqada waxaan dhahay maxaa ka gidgidinayna warqada saxan waay adarta waxaan wacaan dhahay safaaradda Sweden wacaan dhahay safaaradda Sweden marka wacid ayaa ku sheegay waxayna feegayaan inay wax saxiin mid kale mashiina meesha ku yeelanayaan gili mashiinta oo ku fiirana waxayna feegayeen inay saxiin warqadii soo gudgudisay kaarkii gudgudisay waa kartay kan walaalkaas waa kartay waxay tiri waxaan u jeedaa dhib malahan sharciga Kenya ku jirteen muxuu ahaa waxaan Kenya waxaan qaxootiyan ku sharci qaxootiyan wadan ku joogo waxay tiri baxa sharciga Kenya wax cadeynaya tus waxaan aniga waxaan u soo taganaa Nakuru ayaan degnaa jiray Nakuru aan u soo taganaa kaarkii qaxootiga aniga maanta ma baxaya warqadana maanta waxa ku yaala Nyanya House Migration waxay ugu soo dhaftay inaan maanta wadanka aan ka baxo maanta ugu dambeysay wadanka inaan ka baxo
waxa Kenya ugu joogi jiro waxaas ka bax maanta wadan ka baxo Kenya house immigration weynay ugu soo dhiftay maxaa wax ka sheekeynaysa waxa jira sharqi baxa keen waxana mimi naenda kwa Nakuru waxana narudi kama wewe ndego kama naenda wewe utalipa tikiti hada Nakuru aad aan soo laabto oo tikitka diyaaradda iga tagto ma adaa bixinayna tikitka markaas ay tiri iyo siyo kaasi yango waxana waa qeylana umada immigration kana isku yeelana dadkana isku macna sarkaalka meesha joogana immigration aan ku yeelana waxana sharci yihiin waa waxana aniga iga daaflinka wadid hadda kale wixii waa qeylana dadkana isku yeelana wixii figmiya marka qeylana shitay xitr waa kuwanina una biga kaleeli ma xaqal qeylnaysa ma aniga ma fahanti maxan ka fahmaana si jakula breakfast wax qurac hata saaka ma soo cunaan ana shid lacag ma haysta maxan ka fahmaya arkaas waxay tiri weyn waxay tiri waa gacan adagta ilaa Soomaalidu waxa waaye laba kalmad iska weydiyo waxa $100 dhabac ay u barta bifaad aan laakiin waxaan sarkaalka meesha immigration kasta u qeylana isku keenaa meesha hadii kale wixii fartiga saar wixii afartan naga saar Addis Ababa transit ku soo in Addis Ababa hadana jeekin badan Ethiopian kala ma soo mari kara bismillah wixii baa igana ku dhigeen waan soo baxay sidaan ku imaano wariyada ku daalay Sweden banaanka markaan soo baxay ma sha Allah walaalkay la kulmay jaakado weyn oo la wadaawano nagala horkeenay jaakado weyn Ireland airport jaakadii aan gashanay ويا بنا مركاني بناك فيرنو وحواي وحد لبضو كون لبي تمنكي وحد كريسمس دي لبضو كون لبي تمنكي بيشي لبي تمنات لاتني شانتي دي أيام كسر دقني أفر لاتنك وحكي صباح نيروبي شان اللي بعتنك يام كسر دقني محا تولى سويدن وحد كريسمس دي أيها معلم وحد مارتي كريسمس دي أيها عيدو دي أيها البرق لو محا سورنا مركب شو معي الدنيا مارت وحنا مش وقروح بدن تسيب مارت هذا نبرفكي بناكن ولا يا بنا باور بس أنا لسه كريم مالته صح سوستا أنا صوبه ده حليقي سوري دي مالي هذا نيخو أنا وحن تاجنا بس بور حاول تامرك ليزن سومالي أو تا درول نواه ليزن سومالي نواه وتامرك وحن تاجنا صاحب يدي باور كان أودا وروح تاجا برف كان اسمه فابيز باور بودي كرتي برسك يركل ولا شيء وركا على أي حال سيدي أنا حنقول معنا نيخو مركا معنا كلمة دوين أنا أنتك ودي جو الحياة سيدي مينس وحوقها مركز مينس كويتو مينس لبيتو من قوي قلنا وجرا مركز أنا ليه سام إيش هنقول نوشين سبحان الله سام إيش هنقول نوشين برفكي وحوا بورو نقضي معنا مركب الحمد لله السويدن ما شاء الله السويدن ويسولو ويسرنا أنتي ودنك أدي ويسولو وي نيخ مركاني ماضي حقيقة أنا جو مارت ودنك سفيق مركز لوقت سفيق وحوا سفيق وحلي لوقت ودنك برشليس أما مركز جراسكي سكول كفريستو بالشقينا يوم ayaa maartay waxa igu soo dhacday waagaas xataa waxaan rabay inaan biitooyin intaan bilaabinaan maartay biitooyinka Kenya ku sameeyay markaas inaan sameeyo on xaafadaha dadka dhaqaaqa sir markaan sameeyay way soo tagay weysay marka waxaan ku fikiray inaan maartay aan shaqeeyo because nin kognimo soo bartay iskuuli book iyo qaadi way waad ka tagsto waxaan niyo restaurant way jira caasimada Umaleynaa midaan marka saaxiibanahay oo Ismaan liiraado oo maartay reekeen aan isla ahayn oo asiga maartay restaurant asiga marka meesha aan lahayn ugu sameey jiray JK Jam wax liiraado taqaanaan JK aan ugu sameey jiray JK Jam waxa rooti la jaray mayonnaise iyo qudaar iyo kalluun dadkii ciyaal xamar fahmay JK aan dhigi jiray JK alaabtaas aan maartay aan sameey jiray marka Nairobi laga ma aqoon ku bilaabo JK Nairobi aniga wahay marka JK iyo hamburger yar waxa la noocaas aan sameey jiray عثمان كيا مركز رئيس السودان مركز مركز حق كينيا السودان واجر نكيا مركز حنا سو حرر حنا ور عثمان هاي محايس حالتك وروح يرنون في عنا من السودان ما توين جوانا السودان كل جوا وروح حنا اسكنوا يستوكم صاحب ماشي انا شغال تعالى اساس ميا ها اوكي هاي بس انا هو شيء اسكو تو مركز ودن كان waxaa jiro wax la yiraahdo etablirings wagaas qaadanay shaqada marka bilaawdid instinctiob ayaan bilaabay instinctiob wadanka waxaan joogay 3 bilood Sweden waxaa joogay 3 bilood markaan helay contract ugu horeeyay ee sanad ah waxaan ii saxiixay in la cilmi digal oo Stockholm maqaayad kale Job Restaurant ayaa ii saxiixay waan baxay waxaan tagay horta Blue Moon maqaayad yiraahdan tago oo ku taala Ringaby Blue Moon markaa tagay waxaan dhahay waraaniyo shaafa nin kooga ah saxmahay to wadanka waa ku cusbahay adigu wuxuu yiri ma haysataa maxal dhahay maxay tahay ma haysataa contracting ما يسا أربيت في ما يسا وضع عصبة أنا 3 بلود تبليرنا مقاطع وذيك 3 مال متجابة أنتو سبريسكي مقاطع وبيا وبريس والنا سميه حتى عادي ما وحن بس أصلا إني سب منها سيس لو وضنا منها إنستكتيوب وحسن كوك رأي أربيت في مليجي أي هذا المقاطع أنكر جوبان إمادي جوبو مركز أو كوك عرب بان كشقيني مركز كتري يعني ماذا جوب ريستوران وحنا تجابة سمينا إنه كوك بان هاي وحول إنه خوف كوك بان وباناي كوك يخرج كتري أنا الكونتراكت كو قرأت تجاوز كو جلست ما أنت كواد بأنسمي وحيري نو واكو قادنا هذيك عادي ما شاء الله عادي متيد
sidii marka aan maarata orosyada iyo cunooyinka caadiga ah iyo cunto iskuul waxaas ayaa la sameynayay. Jubba restaurant ayaan ka shaqeeyay. Jubba restaurant oo ka shaqeynayo ayaa migrationki soo wacay dacwadii caruurteedii xaaskiga watay. Interview uma marin gabadha aan keenayo wadanka, DNA dhinacan lagama qaadan because waxaan haystaa dhalasho oo ku qoran tahay gabadheeda Ilhaan markaas aniga aan dhalay ay ku qoran tahay maaragtay magacayga Mahad Xuseen Shuqman waa BCI, Nuurta Cabdi Cabdullaahi ay tahay hooyadeed gabadha ayaa maaragtay warqadii ayaa maaragtay waxba ma buuxin form clear ma buuxiyay aan u diray migrationka dacwadeeda xaggaas ka furtay. marka migrationka aniga soo wacay Mahad adiga miya ahaa waxaan aniga Swedish ma aqaanay in meeshaan la ku madarnaa khiifkeygaan kugu dhiibaa telefoonka asaa Swedish yaqaano asaa ay ka turjubaanay naagta waa macnaha markaas waa qofka go'aanka gacanta ku hay. marka yarkiisa la dhahay Neeqo ayaa markaa address ku ahay laakiin Stockholm markaas ka shaqeysanay. marka waxa dhacday migration waan la hadlay migration markaan isla hadalnay waxaan aniga ma haystaan waxa haystaan dhahay shaqo laakiin guri gacan labaad haystaan dhahay. waxay weydiisay gabadha markaa inay xaamil ahayd gabarna ay haysto uurkeeda ka war waxaan hadda ogolaasho ay siisaan because lacag aan haystaa waan shaqeystaa markiiba diyaaradaha ugu horeeyay Sweden ayaan soo saaraya. markaas waxay dhahday marka waxa uure leedahay diyaaradda dadka kaas waxaan dareemay marka ogolaasho inay iska soo wadaanba waxa way wax iska nasiib iska degdeg wahay. marka waxaan aniga waan shaqeysaa ninka walaxdu ninkan shaqeysto waa cook maxay tolema anagu noo shaqeeya waa nin professional ah anagu shaqadiisuna waa ku qanacsanahay. marka maxay tolay ninkan maxay tolay waa in la kala marka cilmi digalka ma nin marka magaciisa adiga maqan odayga badaar leh odaygaas marka la hadlay oo maartay isagana maamulka maqaayada macnaha manager qaybta maamulka ahaa ayaa la hadlay marka migration si fiican la hadlay. marka wuxuu yiri maartay ninkan maadaama uu maartay ku yahay anaga shaqo siinay shaqadiisna waa ku qanacsanahay waa nin fiican uma shaqeeyaba ha okay. marka maxay tolay waa week dambe ayaan maartay jawaab usoo dirayna waxay soo wacay marka case war ma hada la warqadooda migration kaaga maata la warqadooda migration kaaga maata war fur saaxibo labadaba waa ogolaasho dhaay gabadhadan waxa la sii aqoonsi oo deganaansho rasmi ah oo yani oo forever xaaskaagan waxa la sii maadaama Kenyan ay ahayd 2 sano oo ogolaasho ayaa la sii aniga farxad waxaan dhahay ma ayaga soo socday baabuur soo qaado warqadihii waxaan taaganahay caruurtii xaaskii ma ko saaraa taagana warqadihii waa lagu soo waday warqadihii waxaan taaganahay blackable waan soo warqadihii wixii arkay xabadii waan wacday markiiba waxaan dhahay qof yahay diyaar waa Sweden ay maanaysa mar insha Allah ogolaashay waa lagu soo siiyay ama soo socdaa waa dhag markiiba Vekhomel dhaha ayaa kaarkii degnaanshaha loo diray. markii loo diray kaarkii degnaanshaha markaas qadar Euros kaashan ka watay waxaan helayay loonkeyga oo mushaarkeyga kaamil ah oo maartay ilaa 18,000 ah iyo itabliyeens oo waxaan ka helayay 8,000 oo korona adiga 25,000 camal ayaan helayay mushaar ah. cunno ma iga baxaynin jiif baa iga baxay because cunno waxay iga baxeen aniga ku qaxan cuntada wax beesha ku cunay. marka waxaan dhahay markiiba wadankan wax yar jooga martay leesin Soomaaligeeyga ayaan baabuur ku soo 3 bilood iyo baraan wadanka jooga ma aqaan markiiba waxaan soo gatay baabuur soo gatay aniga aan leeyahay leesin Soomaaligeey baabuurkiga maxay ahayd tolan ku socdo ma sha Allah darawalna waa dadku wiilii yaab jireen wax dhijir ninkan hadda wadanka ma soo baabuur wata. marka Sweden horta ma sha Allah way soo dhaweysay aad iyo soo dhaweysay Sweden sidii marka ayagana caruurtay maartay ugu dacwooday degdeg aan ugu keeno oo diyaaradii markii kaarkii u dhacay baasaboorad Kenya gabadheeda baasaboor Kenya ay haysatay gabadha xaaskiga horena waxay haysatay baasaboor oo maartay waxay haysatay maxaa la dhahay oo Kenya ayadana markiiba degdeg ayaa maartay ayaga loo soo qaaday oo maartay liigu keenay Sweden. waxaan geeyay migrationka caruur waxaan dhahay maartay guri waxaas ma haysto waxa la adeeg ku taala la migrationka in kamuunka markaas aan ka tirsan address markaas soo bedeshay Salantuna Cabdi Saciid niiraadaan address ka dhigtay oo asigan saxaabaan ahayn. marka calaaytii xaal asxaabta sidii markaa ayaga nolosha ugu bilaawtay Sweden alxamdulillah markaasaan maartay wadanka ana wax yar joogan baa ku watay ma sha Allah. leesinki Soomaaliga waxa loo ogol yahay qofka wanko Sweden imaado hada leesin Soomaali wadanka marka soo gashid leesinka wadankaaga amba Soomaali ka imaa amba Suuriya ka imaa waa wadanka kaliya Sweden ugu fiican wadamada qaar kood ma sha Allah. waa Sweden waa wadan waa the best country aan kara leesinka wadankaaga ku kaxaysanaysa muddo hal sano waxa loo talagalay qofka inuu hore u socdo oo markiiba leesinkii Sweden soo qaado hore u shaqeysto waa wadan yani jecel qofka bil aadanka inuu macnaha horumar gaaro oo hore u socdo. marka asxaabteeda insha Allah taariikh nololeedkeyga marka sidii aan Jubba restaurant ugu shaqeynay hadda Jubba restaurant way soo gudgulay magaalada Neeqa waxaan ka helay guri gabadheeda ay dhalatay kale ma sha Allah 2009
2019 bishii sagaalkeedii ayay gabadheedii dhalatay. haddana wiil kale ugu dhashay. marka maasha allah horta Sweden maasha allah markii koowaad aad ay soo dhaweysay oo maaragtay waxaan ahaa nin yani aad u shidan maaragtay ayaan ahaa. taariikh nololeedkayga waa maaragtay intaas ayuu ku kooban yahay insha allah. asxaabta dhammaantiina waa mahadsantihiin ducadiina, dhiirigelintiina iyo maaragtay sida wanaagsan aad ii taageeraysaan maanta waxaan hilmaami kara ma insha allah. YouTube channelna insha allah waxa waaye sida aad leedin keep going ayaan nina u dadaalaya oon hore u soconaya insha allah. oon dadka bilaadanka maaragtay dadka walaalaha asxaabteeda aan dhahe Soomaaliyeed inta wax iga faa'iideyso maaragtay insha allah ana ajri xisanad ilaahay iga siiyo. ana insha allah YouTube channelka waxa waaye waxaan ka leeyahay sharaf iyo waxaan ka rajeynayaa insha allah sharaf wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ayaan YouTube channel ka rajeynayaa insha allah iyo inaan aniga maaragtay magac iyo horumarba ku helo insha allah. intaasna idinka ay gaarsiin doona hadduu ilaahay ka dhigo. waadna mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. midda kalena kaamirada saan has ku fiirin haddaa YouTube la tahay hadda waxaan iska daqoy aan mobilkayga waa waxaan fiirinaya barta boqi yariiska maar dulaalka yariiska ee kaamiradan fiirinaya. saan markaan kaamirada u fiiriyo because dadka ayaan fiirinaya laakiin saan haddaan dhaho waan caawirano anaa is fiirinaya soo ma marka kaamirada fiiri YouTube channel haddaa tahay si ay ummaddu u arkaan inaad macna kaamiradii maaragtay indhahaaga yani maaragtay ula socdaan dadkii. waa idin salaamaya asxaabta aad baan maaragtay wanaagsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.